بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كيشانات current electricity إن شاء الله عشر كوحين كواحد لنا series and parallel resistors مريجها أما عابيدا كويس بربرياله يكويس دبياله series كا قارهان عشر كوحين كواحد لنا إن شاء الله تعالى series resistors resistor رضا استبياله. أوكي هذا series resistors ka ama series circuit mareegta series ka hadaynu ka hadalno guud ahaan hadda bal circuit kan u fiirso waxay ka kooban tahay circuit kan battery iyo afar resistor ay ka kooban tahay current ka battery ka yimaada wada kala ma haysto hal wada oo kaliya ta ayuu maraya wadadaasi oo inuu afarta resistor ba sii wada dhex maro marka resistorada qaabkaas oo kale u xidhan ama agabyada circuitka ku xidhan ee qaabkan oo kale isu daba yaala ee aan current ku wada kala lahayn ee wadadaas oo kaliya toon haysto ayaa la yiraahdaa waa series ama waa isdabayaal guud ahaan circuitkana waxa la oranayaa waa series circuit waxaan oranayaa series circuit mareegta series ka ama isdabayaalkii is a closed circuit waa mareeg xidhan in which the current flows one path oo uu qulqulku mari karo hal wado oo kaliya qulqulka electrigu hal wado oo kaliya uu mari karo marka meel kasta oo uu qulqulka electrigu hal wado wada maro wado kaliya tamaro waxa la oranayaa waa series circuit. Okay, series circuit waxay leedahay astaamo u gaar ah astaamaha waxa kamid ah resistorada u xidhan qaabka series ka ah marka la doonayo total resistance kooda in la helo horta number 1 total resistance ka ama isku darka resistance ka is the sum of the individual resistances waa isu geynta resistanceyada ama caabiyada gaargaarka individualka waa kala kelida ah oo for example haddaan halka ku haysano laba resistor oo midna ay tahay resistor kan oo aynu la baxnaa R1 kana uu yahay resistor kan oo aynu la baxnaa R2 total kooda ama resistance kooda caabiyadooda hadii isu geeyno waxaan leenahay R total waxay noola mid tahay R1 plus R2 RT da waxaanu uga jeednaa macna waa R total ama total resistance aynu soo gaabsanaynaa waa isku darka inta resistor ee meesha ku yaala haday laba yihiin haday saddex yihiin haday afar yihiin waa soo wada geynaysaa. Okay, waxaanu hore u tilmaamnay current-ka meesha maraya inuu yahay current wada kaliya haysto labadaba isku dhex maraya marka waxa la yiraahdaa same current flows through each part of the series circuit current isku mid ah ayaa dhex maraya qayb kasta oo ka tirsan series circuit-ka same current flows through each part of the series circuit current isku mid ah ayaa dhex maraya qayb kasta oo ka tirsan series circuit-ka oo mesela current-ka tan maraya haddaan idhaahdo waa I1 current-ka tan dhex marayana aan idhaahdo waa I2 haddaan idhaahdo marka labadii waa laba current laakiin waa isku mid marka sidaa daraadeed waxaan leenahay I1 waxay leegtahay I2 waxay sii leegtahay I total oo macnaheedu waxay ka dhigan tahay total current-kiiba meesha uu maraya marka current-ka meesha maraya waa total current-kii marka I1 na waxay leegtahay total current I2 na waxay leegtahay total current ayun bay leegtay. Okay, qodobka saddexaad total voltage isku darka voltage-ka ama total voltage-ku is the sum of the voltages across each of them waa isu geynta voltage-yada mid kasta dhex maraya ama mid resistor kasta voltage-ka uu gaarka u leeyahay oo imka matalan circuit-kan labada resistor waa kuwan resistor kan oo R1 iyo resistor kan oo R2 ya marka markaan resistor kan doonayno inaan helo voltage-kiisa waa inaynu voltmeter ku xidhnaa voltmeter kana saynu garanno de parallel baa loo xidhi jiray saacada way kan marka voltage-kiisa waa V1 resistor kana voltage-kiisa waa V2 voltage-ka guud ee circuit-ka ama total voltage-kuna waa ka battery-ga oo waa V total baynu oranaynaa marka waxaanu leenahay V total waxay u dhigantaa V1 plus V2 meesha laba resistor baa ku yaala mid walba voltage-kooda la isu geeyo wuxuu ku siinayaa total voltage ayuu ku siinayaa marka qaar waxa dhici karta in si gaar ah loogu baahdo qaacidooyinkii basic ahaa ama Ohm's law marka waxaan oran karnaa V1 waxay leegtahay I times R1 V1 waa resistor ka voltage-kiisa oo aynu V1 u bixinay waa I times R1 sababta aan I kaliya u odhan I1 odhan waa maxay I1 waxay leegtahay I total
I1 iyo I2 mar haddii labaduba series yihiin currentku waa isku mid isma bedelayo laakiin de resistorkeeda ayaa u gaara marka sidaa daraadeed V1 V waxaa lagu heli jiraa I times R xasuuso V2 haddaad u baahatana de waa I times R2 V total haddaad u baahatana waa I times R total I markaa saddexda jeerba waa isku mido V waa IR oo waynu garanaynaa voltageka waxaa lagu helaa currentku lagu dhufta resistance-ka laakiin de currentku mar hadday series waa isku mid oo waa wada I saa daraadeed waxa isbedelayaa waa resistorada waa resistance-ka waa R1 R2 R total bay isbedelayaan okay bal haynu soo qaadano tusaalayaal ama examples aynu soo qaadano example 1 circuit-kan hadda fiirso wuxuu ka kooban yahay laba resistor mid resistance-kiisu waa 3 ohm midna waa 4 ohm battery-ga voltage-kiisu waa 14 volt su'aalahana la inaga weydiiyay waxaad heshaabaa lagu yiri effective resistance effective resistance maxaa looga jeedaa hore aanu soo tilmaamnay kelmadda effective iyo total waa isku mid iyo equivalent intuba waa sum ama waa total ama waa isu geyn ba laga wadaa haddaad effective resistance maqasho waa total resistance ba laga doonayaa laba total current saddex current in the 3 ohm resistor aanu mid soo qaadano effective resistance baa macnaha waa total resistance okay mar haddii labadiiba series yihiin maxaynu oranaynaa tana aynu la baxno R1 tana R2 aynu la baxno total resistance ku mar haddii series yihiin waa labadooda la isu geeyo saa daraadeed waxaanu oran karnaa eeda waxaan leenahay R total ama total resistance ku waa R1 plus R2 marka midna waa 3 midna waa 4 labadooduna isu geeyo marka simply total resistance ki waa 7 ohm waa 3 plus 4 waa 7 ohm su'aasha bida waxa la inaga doonayaa total current waa I total waa current-ka meesha maraya de current-ka meesha maraya haddaynu dhahno waa I maxaad ku helay waa V divided by R V duna waa inay noqotaa total voltage R na waa inay noqotaa total resistance marka waxaan leenahay I total waxaad ku helaysaa V divided by R total V waynu haysanaa oo total voltage-ku waa voltage-ka battery-ga ka soo baxaya waa 14 volt R totalna waa labaduna la isu geeyo inaga la soo baxna waa 7 oo iyadna isku qaybi marka waa 2 ampere current-ka meesha maraya waa 2 ampere su'aasha saddexaad ee sida waxa la yiri current in the 3 ohm resistor waxa la inaga doonayaa xabadan 3 ohm ka current-ka maraya okay adigu maxaad ku qiyaasi lahayd tan lagama doonayo calculation nad samayso sababtoo ah inaad garataa laga rabaa mar hadday series yihiin waxaynu hore u soo tilmaamnay I1 ama current-ka xabada dhex maraya inuu leeyahay current-ka taa maraya inuu leeyahay total current marka I1 equal I2 equal I total maxaynu helay 2 ampere tan marka current-ka maraya simply iyadna waa 2 ampere calculation kale dheeraad ah inagama baahna su'aasha labaad ama tusaalaha labaad waxa la yiri APD ama potential difference of 4 volt is applied to two resistors potential difference qiyaastiisu inta tahay baa lagu isticmaalay laba resistor mid yahay 6 ohm midna yahay 2 ohm connected in series labadaba waxa loo xidhay qaab series ah waxaad calculate garaysaa ama xisaabisaa the combined resistance waa total resistance horaan u tilmaamnay ereyada la isticmaalo marka total laga hadlayo total effective equivalent combined sum intuba waa isku wada macno waa wada total waxa la inaga doonayaa current-ka meesha maraya waxa la inaga rabaa voltage ama potential difference across the 6 ohm resistor potential difference-ka xabada 6 ohm wadata ayaa la inaga doonayaa okay saynu u shaqeyno marka hore waxaan u baahnay circuit-ka inaynu meesha ku sawirno waxa la yiri waa laba resistor midna waa 6 ohm midna waa 2 ohm labadooda marka waa inaad kala siisaa labadii resistors 2 ohm iyo 6 ohm potential difference waa 4 volt marka battery-ga waa inaad ku qortaa 4 volt su'aalaha hadaba ka jawaab waxa laga doonayaa combined resistance ama total resistance maxaynu hore u tilmaamnay mar hadday series yihiin labadaba la isu geeyaa marka eed maxay noqonaysaa R total waa R1 plus R2 R1 na waxaad ka soo qaadaa inay 2 tahay R2 na inay tahay 6 isu geey waa 8 marka R total waxay noo noqonaysaa 2 plus 6 waa 8 ohm B waxa la yiri current following current-ka meesha maraya guud ahaan waa total current iyana waxaan leenahay waa I waa V divided by R V waa voltage-ka battery-ga ka soo baxaya R na waa R total oo de total current total resistance-kiina waa 8 marka labadoodaas uu isu qaybi waa 0.5 ampere meesha waxa maraya waa 0.5 ampere
way sida waxa lagu yiri potential difference across the 6 ohm resistor xabada potential difference keeda hadaa tan tiraahdo waa V1 waa IR1 bad oran voltage keedana marka ayda meesha maraysa wad haysataa current-ka meesha maraya waa 0.5 ampere waa isku mid current mar hadii series in current-ku isbedeli maayo waa 0.5 ampere baa halkana maraya totalna noo ah R na waa R teedana waa 6 ohm marka labadooda markaad isku dhufato waxa ku soo baxaya 3 volt xabada voltage keedu waa 3 volt way tusaalaha saddexaad circuit baynu halkan ku haysanaa laba resistor oo labadoodaba series ah mid waa 3 ohm midna waa 4 ohm tan 4 ohm waxa la nasiiyay potential difference keeda ama voltage keeda oo ah 8 volt batteriga waxba la nasiin voltage kiisa su'aalahana la niweyday waa afar su'aalood runtii mid aynu uga jawaabno su'aasha koobaad what is the current through the 4 ohm resistor xabada 4 ohm ka ayaynu voltage keeda haysano current keeda muxuu noqonayaa inagoon isdhibin inagoon meel kale ka soo wareegin dabcan de current ka maxaa lagu helaa waa V divided by R current ku waa I na waxaad ku helaysaa V divided by R V diina waad haysataa xabadan voltage keedii R teedina waad haysataa labadoodaas soo qaybi marka waxaan leenahay I mar haday tahay V divided by R V diina ay tahay 8 R na ay tahay 4 soo qaybi waa 2 ampere current ka xabadan dhex maraya waa 2 ampere haddaba su'aal kale lagu weydiiyo what is the current through the 3 ohm resistor xabadan 3 ohm ka current ka maraya muxuu noqonayaa dabcan jawaabtaadu maxay noqonaysaa mar haday labaduba series yihiin waxay yeelanayaan same current 2 ampere ka tan ay yeelatay bay tan leedahay waa 2 ampere baa halkan maraya marka jawaabteedu waxay noqonaysaa b da waa 2 ampere because they are series waa series marka waa same current ayaa meesha maraya sida waxa la yiraahdo what is the PD across the 3 ohm resistor xabadan 3 ohm ka voltage keedu muxuu noqonayaa طبعا mar hadaad ogaatay current-ka meesha maraya inuu yahay 2 ampere isla markaana adayso resistance keeda de voltage ku muxuu noqonayaa V waxaad ku helaysaa I times R ama V1 ba ula baxda doonto I times R1 baad ku helaysaa I waa isku mid ah 2 ampere halka marayo ba halkana maraya oo waa 2 ampere laakiin tana R teedu waa 3 de marka voltage keedu markaad I deeda iyo R teeda isku dhufato macnaheedu waxay ka dhigantahay waxaad isku dhufanaysaa 2 iyo 3 2 iyo current-kiya iyo 3 oo aad der resistance-kan waa 6 volt what is the PD applied by the battery voltage-ka battery-ga laga doonaya voltage-ka battery-ga maxaa laga wadaa the total voltage baa laga wadaa hore bilowgii hore waxaanu soo aragnay markay system-kan oo kale ku soo marto V total hadaad u baahato mar haday series yihiin waxaad oranaysaa V total waa isu geynta voltage-yada kala duwan V total equal V1 plus V2 waad leedahay tan voltage-keedii 8 buu noqday tan voltage-keedii 6 buu noqday labada voltage oo la isu geeyaa waa total voltage kuna hadii jeer waa voltage-ka battery-ga marka sida waxaad leedahay V total waa V1 plus V2 V1 waxaad ka soo qaadataa inay tahay 8 volt oo waa tii hore aynu haysanay V2 na waa 6 volt oo waa 10 voltage-keeda waa kan 6 ka noo soo baxay marka isku dar waa 14 volt total voltage-keena marka 14 volt ayuu ku noqonayaa okay waxaynu eeganaa lamps in series balaambadaha series-ka u yaala okay laambaduhu haddii ay series yihiin arrimo gaar ah ay leeyihiin runtii haddii aan idhaahdo laba laambad keligeed meel circuit ku xidhan haddii la shido laambadaasi aad buu iftiinkeedu u yahay haddii laakiin laambad kale lagu ag xidho oo laambada kale inta lagu soo ag xidho la shido waxaad arkaysaa iftiinkii inuu yaraaday sababtu waa maxay haddaba sababtu waxa weeye labadan laambadood ee serious-kiihi waxay wadaagayaan voltage-kii bay qaybsanayaan badiyaana brightness-ka waxa keena waa voltage-kii baa yaraanaya markay kelideed shidneed kelideed bay voltage-kooda isticmaalaysa hadda laakiin laambada markay ku soo beerto waa lala isticmaalayaa marka iftiinkii uu yaraanaya marka haddaba sababtu macnuhu wuxuu noqonayaa each lamp glows dimly mar hadday serious yihiin laambad kasta waxay u iftiimaysaa si naaqusa dimly si iftiinku daciifiyaba ay u baxaysaa marka iftiinkii baa yaraanaya bay ka dhigantay mar hadday serious yihiin laba if one lamp is broken haddii laambade ay jabto ama ay gubataba others go out waxa kalena way wada baktiyayaan laambade hadday gubato kuwa kale oo dhan way baktiyayaan ma sii shidnaan karaan that means hadday laambadaasi hadday inaga gubato ta kalena way gubanaysaa dambay noqonaysaa labadii laambadood bay madoobaanayaan
qodobka saddexaad cannot be controlled independently looma maamuli karo si kala madax bannaan sababtoo haddii dee mid switch loo sameeyo switchkaasi meeshii la doono lagu xidhi karaa haddii switchkaasi aad israa laambadaasi ha ku baktiyo ta kalena u baktiinaya tana shido ta kale u shidaya laba kala maamuli kara marday serious yihiin saddexdan qodob waxay muujinayaan disadvantage ama khasaaraha faa'iido darrada ay leedahay in laambadaha loo xidho serious ay ku muujinayaan that means haddii aanay baahi keeni kartaa jirin in serious loo xidho laambaduhu kuma fiicna in serious loo xidho in parallel loo xidho ay ku wanaagsan yihiin okay bal tusaale halkan aynu ka soo qaadano xagga laambadaha la xidhiidha waxa la yidhi 3 identical lamps saddex laambadood oo identical that means identical marka la leeyahay waa same voltage bay isticmaali karaan are arranged in series ayaa loo xidhay qaab series ah as shown in the figure sida sawirka inooga muuqata calculate the total resistance of the lamps horta waxa la inaga doonayaa total resistance-ka laambadaha laba calculate the resistance of each lamp laambad kasta resistance-keeda hel circuit-ka eeg total voltage-ka circuit-ku waa 6 volt that means 6 volt kaasay qaybsanayaan kuwani current-ka meesha maraya saacadan ammeter-ka bay inoo sheegayso waa 2 ampere that means 2 ampere ba circuit-kan dhex maraya marka horta total waxaan haysanaa total voltage iyo total current total resistance-na waa la inaga doonayaa r total marka waxaan leenahay r total waxa lagu helayaa v divided by I v waan haynaayo wakaasoo waa 6 I na waan haynaayo taasoo waa 2 ampere isu qayb waa 3 ohm that means saddexdan total resistance-koodu waa 3 ohm haddaba waxa lagu yiri waxaad xisaabisaa resistance-ka laambad kasta mar haddii ay identical yihiin resistance-kooduna waa same voltage-kooduna waa same resistance-kooduna waa same marka waxaad leedahay markaad doonayso inaad hesho mid kasta resistance-keeda total resistance-ka mar hadduu 3 noqday dee saddexdoodan uu kala qaybi mid kasta waxay yeelanaysaa 1 ohm ama si kale haddaan u dhigno total resistance-ka waa 3 ohm resistance of each lamp wuxuu noqonayaa 3 ohm oo loo qaybiyo saddexdii laambadood mid kasta resistance-keedu waa 1 ohm ayuu ku noqonayaa qaabkaas haddii 3 identical lamps lagu siiyana aad ula tacaalaysaa okay waxaanu eegaynaa cells connected in series bateriyada marka loo xidho qaab series ah series waxa weeye laba battery hadii la isku daba xidho waxaynu naqaanaa cellska ama dee batteriga xabadda batteriga baynu inagu cell u naqaanaay cellka xabadda cellkii waliba dry cellka noocan loo yaqaanaa voltage-keeda midkiiba waxay soo saartaa 1.5 volt kana waa 1.5 kana waa 1.5 marka total voltage-koodu wuxuu noqonayaa 3 volt ayuu noqonayaa haddii aad xabad ka mid ah batteriyada dhinaca kale u jeediso dhinaca kale aad u xidho waad ka soo horjeedisay labadoodii voltage ba iskansal garaynaya marka voltage-koodu wuxuu dib ugu noqonayaa 0 volt that means waad aragteen had iyo jeer torch-kii dhagaxaanta lahaa ee ay odayaasha hore isticmaali jireen dhinac ma wada jeedin jirin laakiin labada dhagax bay iska soo horjeedin jireen marka labada dhagax hadii la iska soo horjeediyo xataa radio iyo ku jira hadii la iska soo horjeediyo dhagaxaanta voltage-ka lama isticmaalayo waana safe voltage-ka marka la isticmaalayo waa 0 volt wuu iskansal garaynayaa bay ka dhigantay haddii aynu even saddex ka dhigno saddex battery aynu ka dhigno waa 1.5 iyo 1.5 iyo 1.5 marka totalka wuxuu noqonayaa 4.5 volt bal ka waran ka dhexda haddaan dhinaca kale u jeedin hadaynu kala rogno waanu dhinaca kale u jeedin 1.5 ka iyo 1.5 ka ayaa iskansal garaynaya meesha maxaa ku soo haray 1.5 kaliya taa ku soo haray that means marka voltage-ka baaqiga inoo meesha ku soo haraya 1.5 volt hadda circuit-kan saddexda battery si sax way xidhan yihiin laakiin mid baa si qaldan loo xidhay xabadaasi xabad kamid ah voltage-keedii bay cancel garaynaysaa ama ay meesha ka saaraysaa dee midunba markaa soo haraya oo la isticmaalaya 1.5 volt ayaa markaa kugu soo haraya meesha macnaheedu waxay ka dhigan tahay markaynu qaab diagram aynu dhigano bal hadda u fiirso saddexda battery si sax ayay u xidhan yihiin saddexda cell midkiibana waa 1.5 volt 1.5 iyo 1.5 totalkoodu markaa waa 4.5 marka these cells are connected in series saddexdan cell waxaa loo xidhay qaab series ah the total PD across them isku darka potential difference-ka saddexdoodu is the sum of the individual PDs waa isku geynta xabad xabad markaad isku geyso ayaa totalkoodu soo baxaya oo 4.5 ku soo baxaya halkan maxaa dhacay xabadani sidii saxda loo baahnaa bay u xidhan tahay taa koor labada koorno si saxda bay loo baahnaa bay u xidhan laakiin xabadani dhinaca labadu u jeedaan opposite-kooda u jeedaan marka minus bay noqonaysaa
marka 1.5 iyo minus 1.5 way iskoosanayaan maxaa meesha ku soo haray 1.5 volt hal battery sideedii bay u dhaqmayaan marka 1.5 volt voltage ah ama potential difference ah ayuu ku siinayaa one of the cells maxaa dhacay marka hadaba ay isweydiin kartaa maxaa sababay inuu voltage ka yaraado ama maxaa ka khaldan jawaabtu waxay noqonaysaa one of the cells is a wrong way round mid kamida bayteriyada ayaa si qaldan u xidhan one of the cells is a wrong way round mid kamida cellska ayaa si qaldan u xidhan so it cancels one of the others sidaa daraadeed waxay baabiinaysaa ama ay goosanaysaa mid kamida kuwii sida saxda u xidhnaa ay cancel garaynaysaa ugu dambeyntii waxaynu halkan ku eegaynaa exercise-ka casharka oo aan jeclahay runtii inaad adigu videoga aad hakiso waad yara joojinaysaa si aad uga jawaabto su'aalaha waayo videogu iska soconaya isagu marka adiga boos garaynaya kadib markaad su'aalaha ka shaqayso haddii la yiraahdo jawaabaha videoga dambe ayaad ka heli doontaa insha Allah